xorriyadda maalintii la qaatay lixdii kooda calanka Soomaaliya la taagay in la xasuusto oo la xuso ma xuma laakiin maanta xorriyad loo dabaaldego oo aan haysan ma jirta maadaama shisheeye xorriyadda laga qaatay shisheeyihiina dalka maanta u joogo occupied ay Soomaaliya tahay maanta ma la dhihi karaa xorriyad ay haysanaa I don't think xorriyad inay jirto xorriyad inay jirto oo maleemaayo waayo xorriyad hadday jirto ciidamo shisheeye dalka ma joogeen xorriyad hadday jirto dowlad Soomaaliyeed oo adagaa jiri lahayd xorriyad hadday jirto waa la xakameyn lahaa caqabadaha gudaha ee dalka jira xorriyad hadday jirto xuduudaheena la ilaalin lahaa xorriyad hadday jirto badda la bilaqaysanayo ka cishan lahayn iyo kalluunkan la bilaqaysanayo xorriyad hadday jirto dowlad tayo leh oo dadka iyo dadka ku filan ayaa jiri lahayd xorriyad hadday jirto dadka Soomaaliyeed waxay aan lahayn dad bisil oo u bisil qarannimadooda oo ilaashada qarannimadooda oo aan ka yeelin shakhsiyaad in ay ku takrifalaan xiriirka qabiilka ka dhaxeeya oo ay u adeegsadaan dana siyaasadeed taana ay ku abuuraan colaad haddii xorriyad jirto dadku kama ogolaadeen in lagu abaabulo qabiil haddii xorriyad jirto baarlamaan qabiil ku dhisan ma jiri lahayn baarlamaan deegaan laga soo doorto dad matala jiri lahaa haddii xorriyad jirto doorasho musuqmaasuqa oo laaluush la dhiibaa ma jirteen haddii xorriyad jirto madaxweyne Soomaaliyeed si loo soo doorto lacag shisheeye ma bixiyaan oo madaxweynuhu rabo kama soo xosheen dalka haddii xorriyad jirto qof madaxweyne sheegta shisheeye uma saxiixeen kheyraadka dalka oo dhan waa sax waxaan nahay qaran jira oo ka tirsan adduunka oo calan leh oo yuunta ka tirsan laakiin xor maahin qarnimadeennana xor maahin maanta haddaba waxaana looga baahan yahay in la xuso taariikhda ma xuma in la xasuusto taariikhda ma xuma in la ogaado inaan qarannimadeennu ay jirto oo calan aan leenno yuunta ka tirsanna in la xuso ma xuma laakiin maanta inaanan xorriyad aan ku kifaxna aanan haysan na in la xasuusto waa laga maarmaan in la baroor diiqo oo la yidhaahdo xaalad xun baan ku jirnaaye sideen uga baxnaa oo at least xuska la xusayo maalintaa uu noqdo isu imaatin la isku yimaado oo laga xaajoodo laga munaaqashoodo laga wada hadlo xaaladda aan ku jirno la iswacyi geliyo oo xaqiiqda aan ku jirno la isku sheego waxaan filayaa in la xuso meelaha la orordo in la isxasuusiyo xaaladda aan ku jirno inay ka habboontaan filayaa waayo in la isxasuusiyo xaaladda lagu jiro aad iyo aad ayay laga maarmaan u tahay lixdankii xorriyad qaadanay haddaana dadka Soomaaliyeed xorriyaddii markaan qaadanay isla markiiba waxaa bilowday musuqmaasuq eex balaayo iyo waxaan diyaar loo ahayn lama xallinin inqilaab baa dhacay wixii xigay waa la soconaa in dowladdu waxay inqilaabtay ayadana in la buriyo kuwii buriyana inay dowlad dhisi waayaan ilaa ay haddana aan iska daba wareegeysanay 30 sano kadib ilaa ay hadda inaan iska daba wareegsanayno haddana dadka Soomaaliyeed oo weli aanan qarannimo aanan haynin weli aanan xal u helin dhibaato kala tafaraaruq iyo dowladdii meesha ka baxday weli aanan soo afjirin colaaddii sukeeye weli aanan vacuumka jira ee keenay in dalkeena lasoo farageliyo weli aanan buuxinin waxaa jira dad Soomaaliyeed oo cadow ku ah dalka waxaa jira dad Soomaaliyeed cadow ku ah qarannimada Soomaaliyeed waxaa jira dad Soomaaliyeed oo dhibka iyo qaxarka ka socda dalka dan u arka waxaa jira dad Soomaaliyeed oo lid ku ah xasilooni kala dambayn dowlad iyo sharaf kuwa in la iska xoreeyo waa laga maarmaan waxaa jira dowlado ay dani ugu jirto Soomaaliya inay sida hadda ay tahay si ahaato waxaa jira dowlado raba
inay ciidamadoodu sii joogaan dalka. waxaa jira dowlado raba argagixisadu inay sii jirto Soomaaliya. waxaa jira dowlado raba inay kheyraadkeena qaataan inta aan daciifka nahay iyo waxyaalo badan. kuwaan inaan iska qabano isku xoreyno waa laga maarmaan. xaaladaha inaan is xasuusino isna xasuusino inay muhiim tahay in laga baxo sida looga bixi lahaa inaan ka wada shaqeyno waa laga maarmaan in la is xasuusiyo maalinta xorriyadda. abaabul Soomaaliyeed ma jiro, waa la kala tafaraaruqsan yahay. sidii midnimo loo heli lahaa, sidii abaabul loo heli lahaa, in laga wada tashado, laga wada shaqeeyo, baahida loo qaban la is xasuusiyo waa muhiim maalinta xorriyadda. waxaa muhiim ah maalinta xorriyadda in dalkeenni maanta uu u baahan yahay dadka Soomaaliyeed. waa muhiim in la is xasuusiyo maalinta xorriyadda in wadani Soomaaliyeed loo baahan yahay ee aan loo baahnayn ka tirsana qabiil. waayo wadaniga Soomaaliyeed ayaa badbaadin kara naftiisa iyo nafta dalka Soomaaliyeed, ama naftiisana badbaadin kara, dalka Soomaaliyeed badbaadin kara, waliba markay isu tagaan oo ay og yihiin inay yihiin wadaniyaal u dhashay dalka. maalinta xorriyadda waxaan rabnaa inaan is xasuusino Soomaalinimo in looga gudbo qabiilka loo kala qaybsan yahay waxay la micno tahay tolbadsi adoo tolkaaga badsaday. maaha xumaan, aad bay u fiican tahay. waxaana loo baahan in la is xasuusiyo inay muhiim tahay in la iska qabto kuwa raba Soomaalinimada in laga taqaluso oo jufo hoose loo sii kala jajabo. maalinta xorriyadda taa ayaa u baahan in la is xasuusiyo. maalinta xorriyadda waxaa u baahan in la is xasuusiyo waxaan nahay bulsho mid ah oo Ilaahay mideeyey oo wax kastaba ku mideeyey oo u baahan inay danteeda guud isku abaabusho. dantaa guud ee Ilaahay ku mideeyey oo ay wadaagto inay isku abaabusho u baahan. laakiin ma nihin qabiilooyin kala dan ah oo qabiil walba loo baahan yahay inuu dantiisa gaarka ah raadsado. waa sida kooxaha ka jira dalka, dadka aan danta Soomaaliyeed eegayn ee dantooda eeganaya, dadka u arka kala tafaraaruqa iyo midnimo darrada Soomaaliyeed inay ayaga dan ugu jirto. waa arrinta ay riixaan, buunbuuniyaan, propaganda u sameeyaan si ay uga dhigaan wax jira. waxay mar walba kooxahan adeegsadaan, mar walba kooxahan waxay alifaan qaab qabiil haddii uu ka fashilmo qaabkii qabiil ay ku shaqaynayeen. waxaan soo aragnay dowlad la qabiileeyey way fashilantay. waxaan aragnay jabhado siyaasadeed oo la qabiileeyey. waxaan aragnay taliya kooxoodyo qabiil ayaan aragnay. waxaan aragnay xubin baarlamaan oo qabiil ayaan aragnay. waxaan aragnay gobollo qabiil ku dhisan. waxaan aragnay kala go'itaan la kala gooniya qaranka oo qabiil ku dhisan. kooxahan isku dayaya inay dalka ku sii hayaan xaaladda uu ku jiro ee u arka inay dan ugu jirto waa kooxaha mar walbaba isku dayaya inay alifaan qaab qabiileed cusub si ay siyaasaddan burburka ah iyo baaba u sii socoto. federalismka qabiilka ku dhisan, baarlamaankan qabiil ku dhisan, 4.5 kan lagu shaqeynayo haddii maanta meesha ay ka baxdo mid cusub ayay alifayaan. waayo ma rabaan Soomaaliya inay xaaladdan ka baxdo. maalinta xorriyadda waxaan rabnaa inaan is xasuusino dadka noocaasa inay yihiin cadowga Soomaaliyeed oo loo baahan yahay in lagu xoreeyo dalkan. maalinta xorriyadda waxaan rabnaa inaan is xasuusino diinteen islaamka Ilaahay nagu manaystay iyo xasiloonidii iyo midnimadii diineed ee aan lahayn in maanta la carqalateeyey, in xuduudaheena diineed la iska soo galo, in koox walba ee diineed ee adduunka ka hirgashaa meesha ugu horreysa ay sida sahalkaa ku soo gasho inay tahay Soomaaliya oo ugu fidiso fikirkeeda. waayo intellectuals aqoon-yahano diineed oo difaac ma leh, caatifiyiin aqoonta ku yar tahay oo caatifadooda loo adeegsado oo la yiraahdo jannaad galaysaan haddaad dalkiina qallaasa ka abuurtaan oo farac nooga abuurtaan haddaan ay kooxdan. kuwa Bakistaan aadaya oo dalka loo soo diraya laleeyahay
janno ku raadsaday inaad faracan dalka ka hirgelisaan kuwaa tegay sacuudiga oo la soo noqonaya aragti diineed la leeyahay ka hirgeliya dalka kuwaa tegay masar sidoo kale la imaanaya koox diineed dalka soo gelinaya intooduna waxay isku dagaalayaan dalka gudihiisa mid walbana waxaa laga xukumaa waddan shisheeya xukuma xorriyadeennii ayaa halis la geliyey kooxaysigaa diineed ee dalka lagu soo fidiyey awgii waxaan u baahannahay arrintaa inaan iska xoreyno oo midnimadeennii iyo xasiloonidii diineed ee dalkeenna iyo dadkeenna inaan dib u soo ceshanno inaan kooxahan diiniga ah dibadaha ka dhisan inaan dhahno ma rabno inaad dalkeenna timaadaan waayo annagu diinta waxaan helnay ka hortiin intaanan idinku helin axaadiisdeennina waa haysanaa sunnadeenni nabiga calayhi salaatu wasalaam waa haysanaa 114 waa noo taallaa culummadeennii inaan annagu samaysano ayaan u baahannahay idinka culummo inaad noo samaysaan idinka ma rabno xorriyadda inaan gaarno ayaa loo baahan yahay waxaan u baahannahay dhaqaalaha dalkeenna ee aan weli la develop garaynin inaan la soo baxno ayaan u baahannahay sidaan ula soo bixi lahayn inaan isxasuusino ayaan u baahannahay maalinta xorriyadda waxaan rabnaa dhaqaalaheenna inaan u soo saarno si waddaniga u sahlaysa inuu shaqo helo isla markaana u sahlaysa dowladda inay canshuur hesho si ay u maalgeliso howlaha loo baahan in loogu adeego danta guud ee dalka iyo dadka waxaan u baahannahay kheyraadka dalka in la soo saaro laguna maalgeliyo waxbarashada isbitaallada jidadka bilicda dalka shaqo abuurista bulshada iyo wax kasta oo u baahan in dadka loo qabto in loogu qabto ayaan u baahannahay inaan isxasuusino maalinta xorriyadda waxaan u baahannahay inaan isxasuusino kheyraadkeenna inaan siinin waddamo shisheeye oo aan qalina loogaga seexan iyadoo laaluush la siinayo shakhsi sheegtay inuu madax yahay maalinta xorriyadda waxaan rabnaa inaan isxasuusino howlahaasoo dhan inay noo yaalaan haddaan nahay dadka Soomaaliyeed oo aan u baahannahay dalkeena inaan dib u xoreyno maalinta xorriyadda waxaan rabnaa inaan isxasuusino xorriyadda aan helnay waxay ahayd mid laga xoroobayay gumaysi dalka yimid tii gumaysigii waa bixinay laakiin waxaa loo baahnaa xorriyad labaad oo ahayd dalka iyo dadka Soomaaliyeed inay helaan nidaam dhexe oo ay isku maamulaan si ay iyaguna u wada noolaadaan adduunkan ula noolaadaan xorriyadda labaad laguma guulaysan waxaan rabnaa inaan isxasuusino maalinta xorriyadda inaan u baahannahay isxoreyn labaad si aan isu qaramayno oo aan si aan isu qaramayno ee nagu suurtagasho in annaguna wada noolaano adduunkan wax la qabsano waxaan u baahannahay waxyaalo badan inaan isxasuusino maalinta xorriyadda waxaan u baahannahay haddaan nahay dadka Soomaaliyeed inaan dib isu xoreyno oo aan dalkeenna iyo dadkeenna dib u hanano